Dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan naguna soo biirtaan. Dalka Maleeshiya ayaa waqti kahor waxaa deganaa boqolaal sano kahor waxaa deganaa dad kuwaasoo mar keliya la waayay isla markaana dad ayaa 100 sano kadib waxay go'aansadeen inay tuulada yar soo booqdaan. Isla markii ay yimaadeen tuuladu waxay ahayd mid aad iyo aad u qurux badan, waxayna arkeen shimbir. Gabadh ayaa shimbirtii sawiraysa, isla shimbirtuna waxay u kacday dhinacii jasiiradda waxayna kasoo daba galeen dhinacii. Waxay soo daba gashay shimbirtii isla markaana kuwii la socday dhammaantood way soo wada daba galeen. Markaana jasiiradda ayay bartanka u soo galeen iyagoo ma garanayaan jasiiradda waxa kaga soo horreeya. Markii ay jasiiraddii bartanka u soo galeen jasiiraddii yareed waxay arkeen wax aad iyo aad loola yaabo. Markii ay arkeen wax meel suran oo bilaadan weyn iyo meel xadhig ku yaalla oo duugoobay oo meel saa lagu xiray oo ay ku qorantay dib u noqo oo digniin ay ku qornay. Wiil ayaa gacantiisa ku qabtay xadhiggii waana uu kala gooyay isla markaana dhammaantood waxay go'aansadeen inay hore u socdaan. Markii ay jasiiraddii xaggaa hore u soo socdeen waxay arkeen aqal meel ku diyaarsan kaasoo duugoobay isla markaana aqalkii ay hagaajisteen habeenkii halkaas u hoydeen. Markay habeenkii seexdeen albaabkii ayaa la soo qaraacay.